meeqa maalmood ayaad hurdo la'aan ahaan kartaa? celcelis ahaan bani aadamku 6 ilaa 8 saacadood oo hurdo ah ay u baahan yihiin 24 saacadoodba si jirkoodu ugu helo nasiino buuxdo maskaxdooduna ay u hesho nafaqo ku filan. waxaa laga yaabaa hal habeen oo aadan seexan ama aadan helin hurdo kugu filan inay kugu adkaato shaqada, caajis iyo xanuuno kalena aad ka qaado. bal ka waran haddii aan ku dhaho waxaa jira nin aan seexan in ka badan 60 sano. Tai Ngoc oo ah 80 jir u dhashay dalka Vietnam ayaa sheegay inay hurdo ugu dambeysay sanadkii 1962 xilligaas oo uu socday dagaalkii weynaa ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Vietnam. ma jirto sabab weyn oo u keentay hurdo la'aanta sida xanuuno waaweyn, laakiin wuxuu sheegay in isaga oo 19 jir ah ay qandho qabatay wixii markaas ka dambeeyayna uu hurdada iska waayay. habeenkii oo ay dadka oo dhan hurdaan isagu waxa uu samaystaa qamri uu gacantiisa ku sameeyay, wuxuuna ka sameeyaa bariis ka baxa dalka Vietnam. waxaana cajiib ah inuu aad ugu waalan yahay isticmaalka qamriga iyo sidoo kale sigaarka oo uu maalintii cabo sida la sheegay 70 xabo. qoyska Ngoc sida xaaskiisa, caruurtiisa, asxaabtiisa iyo deriskiisa ayaana weligood arkin isagoo hurda. dad badan ayaana isku dayay inay tijaabiyaan oo ay si dhow ula socdaan xaaladda ninkan. si kastaba ha ahaatee, dhammaantood waa ay ku fashilmeen hamigoodii ahaa inay arkaan Ngoc oo hurda. xaaladda 80 jirkan uu ku sugan yahay ayaa waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa insomnia oo ay micnaheedu tahay hurdo la'aan. waxaan ognahay in hurdo la'aantu ay dhaawac weyn ku tahay caafimaadka jirka iyo maskaxda qofka, laakiin haba yaraatee uma muuqato inay Ngoc caafimaadkiisa saameyn ku yeelatay. YouTuber lagu magacaabo Drew Biniski ayaa ninkan ka raadiyay Vietnam si uu ula kulmo. ugu dambeynna waa uu la kulmay. muuqaal uu ninkan ka soo sameeyay ayuu soo geliyay bartiisa YouTube-ka 1 February ee sanadkan. waxaana in ka yar 4 bilood daawatay muuqaalkaas in ka badan 11 milyan oo qof, taas oo muujinaysa in xaaladda ninkan ay dad badan la yaab ku noqotay sidaada oo kale. mar la weydiiyay inuu jeclaan lahaa inuu sida dadka caadiga oo kale u hurdo, ayuu ku jawaabay, "haa, aad ayaan u jeclaan lahaa inaan u noolaado sida dadka caadiga ah ay u nool yihiin." taas oo uu kala jeeday inuu mar ku haminayo inuu arko isaga oo hurdaya sida dadka caadiga ah ay u hurdaan. saaxiibayaal, mawduucana maanta intaas ayuu ku egyahay. waxa ay kula tahay sheekada ninkan qaybta faalada noogula wadaag. inta aan mawduucana xiga ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.